بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العظيم. walaalayaal darsigeennan diiniga oo ka mid a muxaadarooyinkeenna xiriirka ahay waxa uu maanta ku saabsan yahay taxriimu alcuquuq wa qadiicatu raxim. caasinimada waalidka caasi lagu noqdo, qaraabada la gooyo, xaaraannimadkeeda. maxaa yeela intaasu waxay iska leeyihiin xuquuqo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey. wax kastoo xuquuqa oo qofka mukallafkaa ilaahay uu saarana inuu la yimaado ayaa la doonayaa. qofka marka waxaa weeye xuquuqan waxaa laga wadaa waa cuquuqul waalideyn, labadii waalid oo ku dhashay ood caasiso, amase mid ka mid a hadday labadoodii wada joogin. caasi waalideennimadu marka waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn oo kabaa'irta ahay ka mid tahay. marka waxa weeye dembi aad iyo aad u xun oo kabaa'ira weeye. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi: qul licaaqi waalidayhi yacmalu maa yashaa fa ina masiirahu ila annaar walciyaadu billaahi tacaala. waxaad ku tiraa howdhaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam midka caasi waalideynta ah wuxuu doono oo camal ah ha sameeyo, meesha u dambaysa naar lee waayo. marka haddee wax sahla ma ahan waalidkii ku dhalay oo sababul wujuudka koonka kan asagu ahay inaad adduunkan aad timaado inaad caasi ku noqoto. waxa la isfaraayo waxaa weeye birul waalideyn weeye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka meelo badan uu ku sheegay. waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana ayuu dha ilaahay. ilaahay markuu waajib yeelay ama uu amray ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis in la caabudo, ilaahay wuxuu ku xejiyey haddana alle wa bilwaalidayni ixsaana. waa inaad labada waalid ixsaan aad u samaysaan oo baari u noqotaan. haddii masalanba hadda birigaas shareecada laysku faray laga tago maxaa ka imaanaya? dunuub aad i aad weyn bay noqonaysaa. haddana aayaddaas markii la sii wado aayaddan kaleentoodoo suuratu nisaa: wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa bilwaalidayni ixsaanan wa bidilqurbaa ayuu dhah ilaahay. bal hadda xaqi ilaahay marka la sheego, xaqa allah, xaqa rasuulkaa ku xiga, xaqa waalideyntaa ku xija, qaraabadii ayaa la sii gelayaa haddane. waxaa yeele raximtu ayaduna xiriirin ayay rabtaa. maxaa yeele nabigeennu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam: alraximu mucallaqatun bilcarshi ou dhahay. raximtu waxay ku xidhan tahay carshiga. taquulu man wasalanii wasalahu llaah waman qadacanii qadacahu llaah. waxay dhahaysaa qofkii i xadhiisho allaha xadhiisho, qofkii i gooyana allaha gooyay leeda. ilaahayna waxau u ballan qaaday xadiis kalentood inuu markaasi qofkii xadhiirsho uu xidhiirinaayo, qofkii gooyana uu goynaayo. qaraabada marka xidhiirinteeda qofkii ilaahay xoola siiyey xoolahaas ayuu ka xidhiirinayaa. xidhiirintaas marka xoola iisa inuu siiyo ma waajibaa mase waa shay oo maaragtay sunno ah oo mustaxsana? a'immada way isku khilaafeen, laakiin sida raajixa a'immada saddexdaa ay qabaan, haddii laga reebo abuu xaniifo, waalideynta mooyaane dadka kaleentood waxsiintiisu waxa weeye waa shay sunno ah, waajib ma aha.
marka qofkii aan waxaysanne inuu qalbiga u wanaajiyo oo hadduu qofkaas oo meel jooga oo soo booqdo ayaa loo baahan yahay qalbigana markaasi uusan ka kahanin oo markaasi saas uusan ka dhibin baa la rabaa marka hadda sideedaba dadka xuquuqda iskale sida hadda waalidka qaraabada marka la xiriirinaayo waxaa ka horeysa qofkaasu qof alla xiriiriye inuu yahay qofku markuu xuquuqda ilaahay uu guto ayuu xuquuqda makhluuq u guda karayaa aayadda hadda aynu ku iftitaaxnay aayad macno waaweyn ay ku jiraan weeye oo wax kasta laga koontarooli karo waxaa dhici karta in la arko dad markaasi qaraabo ah oo raxim ah oo isku xun oo isdilaaya sida hadda Soomaalidan oo kalentood Soomaalidu way isdhamaysaa way isdishaa waana qaraabadu wax dhow ma ahan Soomaalidu sideedaba waa wada qaraabo kulligood wada qaraabo laakiin waxa sababaya inay isgooyaan oo isdilaan maxay tahay alla ka dheerida weeye qofku markii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala daacadiisa uu ka jeesto wax kasta oo xumaana ayaa halkaas u imaanaya maxaa Ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'ala suuratu Muhammad ama suuratul Qital Ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'ala laba aayadood aayadda 22 iyo aayadda 23 fahal casaytum ma mudantihiin oo Ilaahay oo laga wado waxa xaqiiqo ah inta walaytum hadii aad jeesataan haddaad jeesataan maxaa laga wadaa daacada Ilaahay markaa ka tagtiin Ilaahay wuxuu leeyahay waxa xaqiiqo ah casaada quraanka iyo xadiisa xaqiiqa laga laqbeeyaa lacalladii iyo ku xukunka ajid xagga arabiyada oo li taraji wa tawaqquc ma ahantan Ilaahay wuxuu yiri waxa xaqiiqo ah inta walaytum hadii aad jeesataan daacada Ilaahay aad ka jeesataan daacatu rasuulillaah aad ka jeesataan oo amal falka diinta aad ka tagtaan an tufsidu fil ardi wa ilaahi arrada inaad fasaadinaysiin qofka waxa weeye haduu Ilaahay daacadiisa ka tago waxa laga sugaahu waxa weeye fasaad weeye qof Ilaahay daacadiisa ka tagay ayaa wax wanaajaya wax suurta galay ma haddii kala hada saas tiraahid waa adigoo kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga beenayo kala antood weeye bal aayadda u fiirsan marka waxa xaqiiqaha u dhahay Allah subhanahu wa ta'ala hadaad jeesataan antu marka u horeysa antu siduu fil ardi arrada inaad fasaadinaysaan arrada waxa lagu fasaadina macaasi weeye qofku waxa weeye waxbuu dilayaa waxbuu dhacayaa waxbuu kufsanayaa waxbuu boobayaa wax ka soo sameeynaya khamru cabaya zina ayuu gelayaa macnaha waxa weeye qofku Ilaahay daacadiisa ka taga maba suubanayo sababtoo Ilaahay wuxuu xaqiijinayaa dadku haday Ilaahay daacadiisa ka tagaan wax faa'iido inaysan keenin an tufsidu fil ardi Ilaahay maxaa ku xigsaay marka arlada hadii aad arlada fasaadaysiin oo Ilaahay hadii arlada fasaasha maxaa ku soo xigaysa wa tuqaddi'u arhamakum Ilaahay haddana waxaad goynaysiin qaraabadiini raximkiini baad goynaysaa waxa hada raxim goyntu ay ka timiday oo dadku waxa weeye dadku waxay ilaahan dadkan dad walaala weeye maxay isu dilayaan maxay isu xasdaayaan maxay isu dhakraayaan waa soo dad walaala maahan walaala waa yihiin oo nasabka waa ka yihiin laakiin waxa u diiday Ilaahay baa sheegay inay maaratay xuquuqdi oo sharciga ahayd ay ka soo baxaan Ilaahay baa sheegay waxa u diiday maxay la markay waxa u diiday daacada Ilaahay rasuulkiisa ka tageen diinta Ilaahay inay ku amal falaan ay ka tageen mar haday saas ka tagaan wax laga rajeeyahay ma jiro kan qaraabadaydi waay fulaan waay waxay taraysa ma jirto wiilkayga anigu dhalay weeye gabadhaydii waay waxba ku tarimayso dadku haday alla ka furtaan wax faa'iido leeyahay ma jirto an tufsidu fil ardi wa ilaahi wa tuqaddi'u arhamakum qaraabadiina waad goynaysaan oo
وهذا معناه وضن كينا كدعاية وهوية قرابة قوينمدة أو تالة وهوية قفك حقوق إلهي بو كتغ مركورة بحاية لحق إلهي أساقع حقوق وضن كسر راية مرة دي وهوية إلهي بقو كتغ حريرك الله أو قويي إذا حرير أصوب بنا مجرته اسكوها اللي يميسد قف إلهي حرير كيس قويي حريرا كي يلان يا وحسور تقيل ما أنتاس هذا ساس مركا يلان محاها يستمك أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم أعمى أبصارهم بالله شيء هذا وحن واسكار لنا يا قفك مركو إلهي قويدا عديس أرلدا نو فسادنا يا قرابدو قوينا يا إلهي لعنة ديسا كل عيسى دقاها أيو قبك الليه دقاها حبك مغلي مايو حقو دقيسا مايو قلوب توحى وابيلا يا إنها حقك أرك مايو وحي اسكال لازم واي لكن أساس محاو هاي إلهي سبحانه وتعالى قوين تألقوا قوية أي أساسه مركزون إلهي أولئك كواس الذين لعنهم الله وأكو إلهي لعنضون حديثي سكديري معايا لمركو إلهي دا عديث كتغي مفسد أو نقضي قادع رحم أو نقضي ملعون بو نقضي أولئك الذين لعنهم الله كواس وأكو إلهي لعنضي فأسمهم إلهي سبحانه وتعالى سمي أيو إلهي كردي إلهي هو مقل تري وهو مقل كالوشيغاي ماهن حيوانك إيا ضميرها إيا فردها إيا وحوي إياها إيا خنازيرتو وحوا مقلايا دقاها يا أريق وحوا مقلايا اللوضة أساقنا سيدا سوكلا وحوا مقلا لكن وحيسان حيوانك سكود ديفين وحي حق أولا شيغ أساقنا كود ديفين ماي معنو ساسوي وإلهي سبحانه وتعالى فأسمهم عن سماع الحق وي حق إني دقيستان أي إلهي سبحانه وتعالى كما قلت وأعمى أبصارهم هدنا إلهي بصيرة ذا نوتر قلوب تودا وحي قلايا مجرته ساسوي ضد كاس مركا وحوية ضد انتوي oo dhibaata ay ku dhacday dhibaatadaas ku dhacday marka ilaahay wuxuu yiri fa asammahum wa a'ma absaarahum ilaahay waa maqal tiray ilaahay waa arag tiray ilaahay waa qalbi tiray marka hadda waxaad fiiriso hadda intaas cid ay ku dhacdo adduunyada way soconaysaa ayadoo jasad kaligiisa iyo ruux oo markaas khabiisa ah oo faasidad ah ayay soconaysaa naftaas wal iyaadu billahi ta'ala wal marka waxa weeye waa sidaas haddana Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala suuratu ar-ra'd aayada markaasi 25 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والإله كوا برايا والإلهي بلنك إلهي مرك ألا أتكيك بعد بلنك إلهي أي برنايا إلهي سبحانه وتعالى من بعد ميثاقه مرك إلهي أوصلك بعد معايا لبلنك والله يسكسو غيو عالم ذركنه مالنت إلهي والله ألست بربكم قالوا بلى إلهي واسوي هذا نوع حوي إلهي وحو سودجي رسوله وصادره كتبه وصادره وحي مركاسي وحوي قفك تكاليفه أي الله ساري إلهي هلكاس أيوكو عدي مركا وحي بلنك أهاي أو عهوده هاي أو الله يسكو كاليفي سيدا صلاة إيا الصونك إيا حجك إيا عمرده إيا طاعده إيا بر الوالدينك إيا كل وحانوده كوا بلنك برهنا مركي إلهي أتكيك بعدي ويقطعون ما أمر الله به وهي إلهي أو فري إلا حريشنه قوينايا هذا وهي إلهي فري إلا حريش محيين وعاكمذا مركاسي والدك قرابدي تدكاس أياكمذا ددك وناسناي أو صالحين تهي إلا حريش ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض لأرض فسادنا في هذا القرآن كوحوية مدبا شيبة وكثيرة تمايا الرد وهو كفر سابق الظلم وتهيج الفتن ظلم أيو سمينا يا ظلمك يا ظلمنا فتنة وكعنا يا
dad buu kicinayaa qabqabla dagaal weeye masalan wayufsiduuna fil ardi arlada fasahaadinaya ulaa'ika lahum lacnatu kuwaas lacnad ayaa u sugnaatay ilaahay naxariista alle oo laga dheeraado ayaa u sugnaatay albucdu min allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay laga dheeraado waxaa ku xigsaday walahum suu daari haddana daar xun ayaa u sugnaatay oo cadaabu jahannamo ayay gelayaan oo caaqibatu dunyaa ayaa anba ka xumaanaysa weeye maxaa yeelay adduunyada ayaa waxaa weeye dadka waxyaabahaas markaasi ku kacaaya waxay u dhow yihiin hadday ilaahayga towbo keenaha ilaahay towbada sharuudeedii hadduu qofku la yimaado waa la aqbalayaahe inaa waxaa dhici karta ayagoon towbo keenin saacadda ay ku qunto markaas waxaa ku dhacaysa markaasi cirib xun ayaa ku dhacaysa caaqibatu daar ayaa ku dhacaysa cirib xun ayaa ku dhacaysa saasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa iska ratibna marka horta marka ilaahay ballanka ilaahay ayay buriyeen waa sida aayaddaad aynu ka soo baxayno taas waxaa ka dhashay wixii la rabay in la xiriisho ayay gooyeen sida hadda qaraabadii oo kale shay kasta wuxuu manuud uu ku yahay in qofku ilaahay ballanka alla uu hesho maxaa ka mid a marka maaragtay raximkii xataa muwaalaatu lmu'miniin dadka mu'miniinta in la xiriisho waa la isfaray iyo marka ambiyada dhammaanteedoo la rumeeyo waxaa soo hoosgelaaya jamiicu xuquuqinaas dadka xuquuqdoodoo la ilaalisho xuquuqinaaskina waa ku tumanayaa markay arrintaasu dhacdo arlada ayuu fasahaad ugu dhaqaaqayaa dulmi buu ku kacayaa dadkuu dilayaa waxbuu dhacayaa waxbuu kufsanayaa arrintaas laakiin maxay keentay suu daaray keentay daar xun oo ah wey ciribtiisu inay naar ay noqoto ay keenaysaa marka arrintaasu waa arrin aad iyo aad loo baahan yahay in maaragtay looga fiirsado oo qofku waxa weeye xuquuqda ilaahay waa inuu ilaashaa rasuulkeena calayhi salaatu salaam xadiis oo ka wariyey abi bakrata nin la yidhaahdo nufayc ibnu alxaaris waxau dhahay rasuulku waxau dhahay alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'iri kabaa'irta midda ugu waaweyninka badanna warma idiin sheegaa 3 jeer nabigu ku celishay qulnaa waxaan dhahna uri yaa balaa yaa rasuulallah ilaahay rasuulkiisa u noo sheeg markaasuu nabigu waxau dhahay al-ishraaku billaah ilaahay oo loo shariig yeelo shirku waxaa weeye markaasi waa akbaru dembi ow acdamu dembi cinda allahi tacaala waxaa weeye kufriga noocyaashiisa weeye wuxuu nabigu markaas ku xejiyey wa cuquuqu lwaalidayni labada waalidoo lagu caasiyo qofka waalidkiis oo ku caasiyo ama midkood weeye mid haddii lagu caasiyo midka kalena waa lagu caasiyo waa ka laasimaysaa ee waalidka midaan baari u noqonaya midna waa ku caasinaya ma suurtagelayso xoogaa hooyadan baari aabbaha waa caasinaya amba aabbahan baari u noqonaya hooda waan caasinaya laa nabigu marka wa kaana muttaki'an u dhahay nufayc ibnu xaaris nabigu markaas xusulka ayaa dhulka u yiilay oo waa dangiigsanay markaasuu soo fariistay waxyaabaha markaasi kale oo nabigu oo u soo fariistay wax sahlan maaha alaa wa qowlu zuuri alaa wa shahaadatu zuuri u dhaha nabigu waa ayaduna markaasi kabaa'irta ka mid a hadalka beenta ah been oo markaasi waxaa weeye ummadda markaasi lagu dhibaataynayo shahaadatu zuurka waxaan markhaati laga ahayn oo markhaati laga noqdo famaa zaala yukariruhaa u dhaha nabigu waxau dhahay maaragtay saxaabigaan dhihi lahay wuxuu yidhi nabigu inuu ku celcelinaayo kama zuulin ilaa aan ka dhahno uri laytaw sakata alla ilaah shalaytay ow aamusa nabigay u naxariisanaya nabiguna arrintaas ayaa si iscaaj leh ayuu markaas uga hadlayay waxaa kaloo ay ka baqaayeen in nabigu ina xanaago shay markaasi waxaa weeye balaayaa lisaankiisa inay wax ku soo degaan balaaya dadka ku soo degtoo lagu baaba'o meeshaas marka waxaa weeye waxaa kugu soo asxaabtu maa kaanuu calayhi min kasrati aladab adabta markaasi ay lahaayeen iyo nabiga calayhi salam say uga edab qaadan jireen iyo nabiga naxariista ay u qabeen xanaagaas nabigu calayhi salaatu salaam uu xanaagay ayayba ka yaabeenba waxaa kaloo rasuulkeena calayhi salaatu salaam laga wariyey xadiis cabdullaahi ibnu camr ibnu caas uu wariyey waxau nabiga ka wariyey alkabaa'iru al-ishraaku billaah kabaa'irtu waxaa weye ilaahay loo shariig yeelo wa cuquuqu lwaalidayn labada waalidoo la caasiyo wa qadlu nafsi naftoo la dilo walyamuunu alqamuus dhaarta gelinaysa
يمين الغموس وحوي قف با دارنيا دار بين هو كدارنيا اسغو عامده waxa يمين الغموس لوgu magacaabay waxa weeye dambi bay dhex gelinaysaa dambi haday dhex gelinaysaa dhow naartay dhex gelinaysaa marka casharkeeni maaratay tahriim al-uquuq wa qadi'atu ar-rahim oo koobaad intaas ayuu noogu egyahay casharka damboon ku xijeynana asagana isla qayb kale oo sidaas ayaanu ku qaadaynaa asayeesha hadda casharkeeni koobaado maaratay تحريم العقوق وقضيعة الرحم انتهى سنه وإجهاي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد